koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan waryaada reegeed fadhiye dawladnimo dastuur bay lahayd diin iyo sharci bay lahayd war ciidan difaacay lahayd war nidaam iyo kala dambaynay lahayd niyadsan iyo dulqaad bay lahayd midnimo doon bay lahayd war galandhirir badan yoonay gargaar baad lahayd daacad iyo garsoor bay lahayd dariiq la maray lahayd kalamaanay beriga wacdiyaad bilowdeen oo xusuusaad igeliseen idinka siya war sidaas ma ayna hadda ka hor wadaad xisbiga u ololeeya ayaa xisbigiisii muxaadaro u qabtay gabar ka mid ah taageerayaasha xisbiga ayaa farta taagatay waxayna tiri sheekhow anuu salaad ku jira haddii xisbigeenna wax laga sheego inta salaada ka bax ma difaaci karaa ma ku soo laaban karaa markaas baa wuxuu yidhi waxaa mas'aladaasi la yidhaahdaa ajmac alculamana isku raacsan yihiin addaruuratu tabiixu lmaxduuraat ulma lankiye jeelak ilman waayto laari lankiye neebtana qatalman waayto laari war saas ma ahane waxaa la yidhi culummo masale ay ku bannaysatana waa leedahay middi ay ku cuntana waa leedahay wala joojiyaana bannaan la jiifiyaana bannaan miyaa war waxaad in iska dhaftay wasiir bayle wuxuu yidhi dhaqaalihii waddanka waa kobcay isku fillaashaadna mugdhow gaaraynaa madaxweynuhuna shalay wuxuu yidhi caqabadahana heesta waxaa u weyn dhaqaale xumo baahsan mugga waa yaaba madaxweyne farmaajo iyo wasiir bayle kee run noo sheegaya war maxaad ula yaabaysaa dawladdaani waa kalamaane hadda ka horba waa kii ra'iisul wasaaruhu yidhi ciidamadoo dhan mushaarkoodii waan siinay madaxweyne farmaajona uu yidhi ma siin 3 bilood mushaar warnamiyo may siin lahaa hadal lankoona sidoo aan ere lankoona sidoo aan qaadada wala eri wasiir beeli dhagaaladana badii hooba eri lacag badan oo lacag Soomaaliya oo kaash ee baawajayka arigi madaxweyne farmaajona may ba ka hadalay US oo Abu Bidaarle may ma jirto taas war waxa la yiri ninba dahab lumay si u doondoon waxa kale la yiri hadal waa margayo kala hadba meel u jeedma hatina deega ma in sheentay hoobaad hadalka marjeewa mi marjii korta wariya war ma aysan wasaaradda maaliyadda maanta maamul goboleedyada qaar waxay ku wareejisay gawaari canshuurta lagu aruuriyo waana Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ma wadaagtii miya oo nimada waxaan idin leeyahay Jubbaland iyo Galmudug iyo Puntland canshuur laga raba miya wariya halaa oo dhidile halaaga hayeen ku dhax darto ilanka kanow aryaadaha waxa hore loo yiri col kala taga laga adkaa war Soomaalidu waxa ku mahmaada col kala tagay laga adkaa aryaadaha Muqdisho iyo Afkooya iyo meelo badan oo kala bariga roob doona laga dukahaye idinka xaa ku dhacay ilaahayo roobnooke rabbiyo raxmaano roobnooke roobdoon yalla dhifa beerwiin waraabtoy aamiinay beeryar waraabtoy aamiinay 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 muradkaano allow sahle warnimayo waagi hore markii la roob doonayo ardadu looxay madaxa saaran jirtay hadda ma buug bay saartaan war annagu adeer mar hore ayaan roob doonnay roobkiina ilaahay wuu na siiyey ee idinka de qoshigiina warnimayo saraakiisha militariga gobolada Baay iyo Boqol ku sugan waxay yiraahdeen waxaan soo qabanay sarkaal al-shabaab ka tirsan iyo ilaaladiisii marka waxaan idin weydiinayaa ciidamadii Shabeellada Hoose sabiib iyo aan hore uma dhaafin miya warnimayaabo wax walba sheegay dalkan ciidamadiisa fadhi uma yaalin oo horay u socahayaan cadawgana waa gumaadayaan cilibtooday gooyhayaan waa soo diyaar garoobayo dalkayga waa difaacaha waa soo diyaar garoobayo dalkayga waa difaacaha haye warnimada maanta Nairobi waxa ku shiray wax alaala iyo wixii xisbi mucaarad ahay iyo madaxdii maamul goboleedyada ee joogay ee talow maxaa ka soo bixi doona kulay taba dawladda waa ka dacwoodeen baan isleeyahay warniyo dawladii hore waxay ka cabin jireen Addis Ababa dawladana waxa laf dhuungasho ku noqotay Nairobi war madaxweyne farmaajo hata ka hor may are Addis Ababa agagaarja kanaalada kiyaalan hirni may kanaalku Nairobi binaanku ay musku naba musku hiro hafata hayba war waxa la yiri danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oo daawad dhigataa ummadii dawlad noqota doqone dabkaaba warnimada waxa la yiri hadda ka hor nin odayaha wuxuu yimid maqaayadahan casriga oo shaaxa lagu gado
markaasuu wuxuu yidhi waa imise koobka shaaxa waxaa la yidhi koobka shaaxa waa 10 kun sonkortuna waa lacag la'aan markaasuu wuxuu yidhi maandhooyo waxaad ii keentaan koob shaaxa iyo 7 kiilo sonkora warnimo yahow cali khaliif galeer oo noqday tabliiq siyaasadeed wuxuu yidhi inaad sidaas noqdo waxaa igu kallifay muqdisho iyo puntland oo iga aamusay haddana meel kasta oo ka tirsan somalilan ayaa tabliiq ku maraya muxaadarooyin siyaasadeed ma ku qabanaya war adeero cali khaliif galeer somalilan buu ka tirsan yahay maxaa idinka khuseeya isku tirsanaado ma ka haysan laakiin risaaladiis meelaha la dhaafnay war ma haysan cunugii yaray istaal ku dhashay laga xaday dib loo helay booliiska Soomaaliyeed ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan tuugidii qaadii iyo cunugiba haba la soo qabto ma xume tuugtaas garsoorka ma la horgeeyahay warnimada balad weyne waxa ka taagan baa la yiri dhibaato aanooyin qabiil la isku afduubtan la isuna dilo war ma dhibaatooyin nicum ba ku jiraysan war ordaniyo meesha lagu kala kaxeeya war ma anaga inaaf laga diga taadiga wariya maalin kasta ka kala wariya xishooba oo ilaahay ka cabsoo dalkiina u shaqeeya naga taga iskumaan Allah idin ka dhigay